abaarihii 11kii barqanimo subaxnimo isniin oo ay taariikhdu ahayd 9kii bishii 7aad 2012 ayaan ka baxay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya anigoo ku sii jeeday garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo waxaan ku wajahnaa safarkayga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo ujeedada safarkaygu way ii qorshaysnayd waxaan rabay inaan soo arko waxa la taaban karo ay xukuumadda ku meel gaarka ah qabatay gaar ahaana go'aankaygu waxa uu ahaa inaan si gaar ah u abaaro golaha wasiirada ee uu hogaamiyo Dr. Cabdiweli Maxamed Cali iyo xubnaha golihiisa wasiirada si aan u ogaado 12kii bilood ee ay xafiiska joogeen waxa la taaban karo ay u qabteen dalka isla markaana taariikhda u gali doona guul iyo gobonimo waxa ay qabteen 12kii bilood ee ay xafiiska joogeen wax yar kadib joogitaankaygii magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo ayaa waxa ii suuragalay inaan la kulmo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali anigoona kala sheekaystay waxyaabaha u qabsoomay muddadii 12 bilood ahayd ee ay xafiiska joogeen waxaan ugu horeyn weydiiyay bal sida xaaladda dalka ay ahayd markii uu imaanayay bismillaahir rahmaanir rahiim xaqiiqadii markii aan meesha imid aan qabtay xilka ra'iisul wasaarenimada dalku wuxuu ku jiray xaalad aad u adag marka laga eego dhiga ammaanka oo kale in badan caasimadda Muqdisho iyo gobolada dalka waxa gacanta ku hayay kooxda Al-Shabaab wadanka waxa ka jirtay abaar ba'an oo ah tii ugu xumeed 60kii sano ee la soo dhaafay siyaasadda arrimaha gudaha iyo hay'adaha dawladda maanay wanaagsanayn xiriirka TFG dowladda lahayd maamuladii iyo gobolada dalka sidoo kale ma uusan fiicnayn mana uusan qeexnayn si cad oo muuqata dhammaan arrimahaasi ayaan diiradda saarnay waxaana ku talagalay in Soomaaliya dhibta ay ku jirto laga saaro colaadihii iyo xasaradihii 20 sano la soo dhaafay ragaadiyay dalka in wax laga qabto waxa hubaala bishii Agoosto oo ahayd bishii labaad ee jiritaanka xukuumadda uu hogaamiyo Dr. Cabdiweli Maxamed Cali waxa bilowday xoreyntii iyo xasilintii gobolada dalka iyo caasimadda dalka hooyo iyadoona ay ahayd 6dii bishii Agoosto waqtigii ay Al-Shabaab isaga baxeen magaalada Muqdisho haddaba ra'iisul wasaaraha waxaan weydiiyay waxa uu ku micnayn karo horumarada dhinaca ammaanka ay xukuumaddiisu gaartay muddadii ay jirtay markii aan xukuumadaydu ay timid magaalada Muqdisho boqolkiiba 50 in ka badan asxaabna kala boqolkiiba 60 waxay gacanta ugu jirtay shabaab ciidamadan waxay joogeen jidka wadnaha wada la socotaan bishii August 6deedii waxaan ku guuleysanay xashaab inaan ka saarno magaalada Muqdisho ka bacdina aanu u soo jeesano sidoo kale aan ka xoreyno gobolada dalka ee kale waxaanu bishii December sanad la soo dhaafay xoreynay Beledweyne ka bacdi waxa ku xigay Bay Bakool gobolada Bay Bakool gobolka Gado dhamaantiis marka laga reebo laba magaalo Jubbooyinka walina waa ay socotaa xoreyntii dadka laga xoreeyay Al-Shabaab wayna socotaa xasilintii soo mararka qaar kood waxa weey waa inaad xoreysaa dalka laakiin waxa ku muhiimsan xoreynta waa xasilinta dalka in la xasiliyo maamul loo sameeyo gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo iyo sidoo kale tasiilaadkii iyo imkaaniyaadkii ay u baahnaayeen bulshada Soomaaliya ku nool goboladaas bishii June sanadkii 2011 oo ahayd markii xilka ra'iisul wasaarenimo loo soo magacaabay Cabdiweli Maxamed Cali oo ahaa dhaktar wax ka dhigi jiray jaamacadda Niagara University oo ku taala cariga Mareykanka waxa hubaala ama ruux walba oo Soomaaliya uu qiraya in xaalad adag ay dalka ka jirtay marka la fiiriyo xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha federaaliga ee dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya gobolada dalka iyo dawladda dhexe haddaba qiimo intee leeg ay xukuumaddiisu ku bixisay arintaasi
markan xukuumadooda meesha ay timid runtii wax xiriir oo ka dhaxeeya gobolada iyo xukuumadda ma aysan jirinin anse marka qaarkood waxa ka dhaxeeyay dhibaato labada ba ka dhaxaysay oo wax la isaga jawaabay idaacadaha waxa la qabanayay shirar kala goongooni ayaa la qabsanayay markaan imid waxaan ogaaday waqtiga yar aan haysano challengeska iyo dhibaatooyinka wadanka yaala hawshan loo taala baxadda ay leedahay markaan eegay waxaan ogaaday sida kaliya oo laga bixi karo intaas inay tahay midnimo iyo wadajir iyo Soomaalinimo taas ayaa keentay marka inaan soo dhaweyno gobolada xiriir fiican la yeelano waa tala socotaano markaas aniga iyo madaxweynaha iyo madax kale oo dhanba waxaan ku tagnay boqoshooyin gobollo badan oo Soomaaliya ka mid tahay Puntland Galmudug Hiiraan Baybakol iyo Gado marka in la soo keeno bulshada Soomaaliyeed ay mid noqoto hal ujeedan ay yeelato hal itijaar ay yeelato si loo guuleysto taas sheegtay marka taa waxa ugu dambeeyay waxa weeye inaan xiriir la sameeyno xukuumadda Soomaaliland oo aanu ka tashano sidii aan isugu imaan lahayn sidii afgarad iyo wadajir aan u wajihi lahayn caqabadaha jira 12 sano ee ay dalka Soomaaliya ka soo arriminayeen xukuumadaha ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo laga soo bilaabo dawladii lagu soo dhisay degmada Carta ee dalka Djibouti waxa inta badan dawladaha ku meel gaarka ah halakaynayay ama saameyn xoogan ku yeelanayay khilaaf soo kala dhaxgalay hoggaanka ugu sareeya ee xukuumadahaasi gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddaba Dr. Cabdiwali waxa 12 bilood ee uu xafiiska joogay isaga iyo gulihiisa wasiiradu ay ka badbaadeen in wax khilaaf ah ay soo kala dhaxgalaan hay'adaha federaaliga ee dawladda ku meel gaarka ah haddaba ka xukuumad ahaan arintaasi sidee u wajaheen dabcan waa laga maarmaan in hadii sidaan ku sheegay waqti yar aan haysanay iyo hawsha tirada badan in hortaalay iyo caqabadaha masoo wajahay markaan meesha imid ama noqoto dhibta dhaqaale dhibta abaarihii wadanka saameeyay in aanu waxa kaliya aan kaga bixi karnaa ay tahay midnimo iyo wadajir marka xukuumad meel u socota hay'adaha dastuurka oo meel u wada jeeda iyo Soomaali meel u wada socota ama ha noqoto dowladda dhexe ama ha noqoto dowlad goboleedyada in meel lagu soo wada jeesto arrimahan si loo يعني أي أفرشه يعني هاوشو حلو باهي ودجر وحلو باهي مدنمو وحلو باهي الصومالي النمو سيدا كلي أولو وجهي كرن تاسوي لكن هدية تفرار وكل حجر حكومة أما حكومتها الدولة حكومة هيدا الدستور اللي حضوضا سوى سعن قبل دي يو حكومة دي تدبا إيمانيسا هاوشي لو إقبضي إنا أنو قبلنا خلقها سننا وما نديت كأنها سنينة دبوين بسو قال لهي مركز يوكلفتي إن فنتي أنا ورانشيو حير كدحية هذا دستور الدولة إيوه حكومة ده الدولة ده إيوه دولة الجوالية إيوه مش أنت ذكره. طبعا markii ay golahan wasiirada ku soo beereen saaxada siyaasadda dalka waxa dhacday in dalka gaar ahaan gobolada koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya ay ku dhufteen abaaro xoogan haddaba qaab caynkee ayay golaha wasiirada uga jawaabeen arintaasi una abuureen iskaashi caalami oo dhexmara Soomaaliya iyo beesha caalamka si loo gargaaro dadka ay abaaruhu aafeeyeen runtii waxyaabaha aan ku faani karno waxa kamid ah markaan meesha nimid waxaan wadanka la soo dirsay abaar aad u xun abaartii waxma 60 sano la soo dhaafay dadku waxay ku dhamaadeen goboladan ay haystaan shabaab maadaama ay u diideen inay gaarto macaawanadii waxayna si tarab ah u imaanayeen oo isdaba jooga caasimada u soo qulqulayeen iyagoo jidka ku soo dhibaatoonayay iyagoo ilmahoodii ay ku soo dhinteen qaarkood inta jidka soo socdeen waxay aad marxalad aad u adag qofkii markaas joogay xamar juun sanadka la soo dhaafay ama July ay ardaas yani dareemi kara oo garan karaan isla markiiba waxaan ogaan ku gaaray dadka la badbaadiyo xorooyin loo sameeyo waxaan u sameeyay xeradii rajo xeradii badbaado oo la socotaan oo hadda noqday kaamo waaweyn oo ay dad badan ku nool yihiin dadka in la badbaadiyo taageero bini'aadan loo fidiyo isla markaasna beesha caalamka loo yani lagu dadaalo in yani loo geeyo dhawaaq beesha caalamka oo si ay arintaasi maadaama ay aad u culus tahay inaga la qayb qaataan ilaahay fadligiisa waa ku guuleysanay waliba anagoo waqtigaas yada waxaan ugu soo aaday iyadoo badxiran jiro dhaqaale aad u xun yahay $500,000 u horeysay xukuumadda ayaa ku deeqday si ay u badbaadiso dalkan dhibaatooday
باقي international community ujeedinay beesha caalamkuna si fiican ayaa looga soo jawaabay markii loo soo jawaabayna waxaan ku guulaysanay marka runtii fursad bay ahayd u soo jeedisay beesha caalamka indhaha Soomaaliya taas way sababta keentay in wadamo badani ay si dhab ah Soomaaliya xaaladeeda u fahmaan u ogaadaan u darsaan taas way keentay in مثلا madaxweynaha wasaaraha dalka Turkiga uu yimaado admaantan u jeedaan isbeddelka dhabta ah مثلا Turkiga ka sameeyay dalka Soomaaliya Soomaaliya waxay noqotay hadda maadaama nabad caasimadan ay nabad noqotay in markaasi ay fursad ay timaado ah in dad badan oo madaxii wadanka ay yimaadaan ilaa laga soo bilaabo Ban Ki-moon ra'iisul wasaarayaal madaxweynayaal wasiirro tiro badani maanta ku soo qoolayaan dalka taas ayaa keentay marka يعني challenge-gii abaaraha iyo qaabkan ugu jawaabnay iyo sidii aanu u wajahnay ayaa keentay marka beesha caalamkuna ay tiraado oo Soomaaliya isbedel baa ka socda dhan waxa ka socda xoreyntii xasilintii iyo dabdiskii dhanka kalena in dadkan la soo gaaro oo gargaar bini'aadamada la gaarsiiyo oo dhibta ay ku jiraan lala qaybsado taas ayaa keentay marka inaanu isku xiran anaga iyo beesha bishii September 2 bilood kadib markii ay xukuumadda timid waxaa la soo bandhigay khariidada road map-ka oo dad badan oo Soomaaliya ay ugu magac dareen tubta nabadda iyo horumarka taasi oo ahayd mid lagu saleeyay qaabka Soomaaliya ay uga bixi lahayd ku meel gaarka haddaba daawade maxaad u malaynaysaa qiimo ahaan inuu ugu fadhiyay road map-ka ummadda Soomaaliyeed muxuu ka koobnaa طبعا waxyaabaha aan ku xasuusto xukuumadayda oo legacy u noqon doona waxa kamid ah road map ku soo socotaan wuxuu ka koobnaa 4 qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa in dalka la xoreeyo shabaab laga saaro la xasidiyo maamul loo sameeyo qodobka labaadna wuxuu ahaa in dawladnimo wanaag la muujiyo la dagaalamo musuqmaasuqa la dagaalamo in hay'adaha dawliga oo maadaama haykalkii dawladnimada uu dhumay in يعني كابياش dhaqaalaha iyo hay'adihii dawladda dib loo soo nooleeyo tasaddexaad oo iyana muhiimka ahayd waxay ahayd in la isku xirmo la sameeyo dib u heshiisiin waxaan sheegnay marka goboladii dalka iyo xukuumadda dhexana ay soo isgaaraan si markaasi Soomaalidu ay u noqoto yani dad hal ujeedada leh diyaarna u ah inay ka baxaan dhibaatadii haysatay 20 sano la soo dhaafay una gudbaan marxalad kale oo ah jawi nabadgelyo iyo Soomaalinimo iyo wadajir in laga shaqeeyo talaftigeeda iyo ugu dambeyntii maadaama aan dawladeedu ahayd dawlad ku meel gaar ah ku meel gaarnimadu ay ragaadisay 12 sano ee la soo dhaafay in laga baxo wadanka loo sameeyo dastuur isbedel dhabahna oo dhaco bisha August ee 2012 kaasoo muujinaya inaan ku gudbayno marxaladii colaadda iyo dhibta una gudbayno dawladnimo taam ah nabadgelyo iyo horumar waxaa hubaala in Soomaali fara badan ay ka marakacayso qaabka ay xukuumaddu u wajahday arrintii gurmadka abaaraha ee halakaysay gobollo fara badan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya sida dardargelintii in madax ka socota beesha caalamka ay soo booqdaan caasimadda dalka hooyo iyo sidoo kale in la sameeyo guddiyo gaar ah oo ka shaqeeya arrimahaasi sida guddigii la magac baxay maareynta musiibooyinka ee ay soo dhistay xukuumadda Dr. Cabdi Wali haddaba isla waqtigaani waxaa dalka ka socday hirgelinta heshiiska road map-ka waxaa dhici karta in qof walba oo Soomaali uu isweydiinayo qaab caynkee ay xukuumaddu isugu garab waday road map-ka iyo arrinta gurmadka abaaraha labadu waa muhiim dadka in gargaarka bini'aadanimo loo fidiyo dadka in yani la badbaadiyo waajib bay ahayd hal qof oo Soomaali oo dhintay ama gaajo u dhinto ama macluul ha u dhinto ama iskala u dhintay badib weeye يعني qofka Soomaaliga ah dabcan waxa weeye dawladdu waxa weyn qabata waxa weeye in ay ilaaliso nafta karaamada sharafta qofka Soomaaliga marka taas maadaama ay tahay waa waajib laga maarmaana bal sidoo kale in marka nidaamka dawligaana aan ka qaadno meesha ay taalay aanu geyno meesha ay istaasho Soomaaliya taas ayaa keentay qorshaha road map-ka Soomaaliya in laga qaado يعني waqtigaas meesha ay taagneed oo ah colaad iyo dawladnimo colaad iyo dib iyo abaaro loona gudbo markaasi meesha joogta meel ka duwan oo ah yani horumar Soomaalinimo wadajir iyo dawladii oo dawladnimada dib loo soo yeegleeyo markii la xoreeyay gobolada dalka gaar ahaan caasimadda iyo sidoo kale gobolada koonfureed waxa hubaal ahayd wajiga hor yaallay xukuumadda inuu ahaa qaabkii ay u wajihi lahayd xasilinta goboladaasi ay xoreysay
haddaba qaab caynkee ayay u soo nooleeyeen laamaha sharciga sida booliiska maxkamadaha iyo garsoorka si loo helo laama ka shaqeeya dhinaca ammaanka islamarkaana xasilin kara goobihii ay xukuumaddu xoreysay طبعا waxa weeye magaalada markii aan xoreynay caasimada Muqdisho xoreynta in shaab laga saaro waxa ku muhiimsan in la xasiliyo yani qorshahaasi ah in dib loo abuuro oo dib loo howlgaliyo stationada booliiska hay'adaha cadaaladda iyo adeegyada kale bulshada waxa weeye waxay kamid ahayd waxyaabaha laga marmaanka ah in dadku ay aaminaan xukuumadda in dadku ay aaminaan dawladda in dadka iyo xukuumadda isku xirmaan marka taas ayay ahayd ujeedada ka dambeysay stationada booliiska kaliya maaha in maxkamadaha dib loo howlgaliyo in degmooyinka dib loo howlgaliyo in maamulkii degmooyinka iyo hay'adaha dawliga ah ee shaqeynaya ee ka shaqeeya meel kasta oo la xoreeyo la gaarsiiyo adeega bulshada waxaa hubaala in marka laga hadlayo adeega bulshada waxyaabaha ugu muhiimsan oo ka mid ay tahay adeega waxbarashada iyo fursadaha tacliinta sare ay u helaan da'yarta haddaba qaab caynkee ah ayay xukuumadda Dr. Cabdiweli u maareysay fursadihii waxbarasho iyo deeqihii waxbarasho si loo abuuro da'yar Soomaaliyeed oo wanaagsan oo mustaqbal ifaya u abuuri karta jamhuuriyadda Soomaaliya oo 20kii sano ugu dambeysay dhex dabalanaysay colaado abaaro iyo dagaal sokeeye waddan kastaaba horumarkiisu wuxuu ku xiran yahay bulshadiisa iyo aqoonteeda horumarka waddanku kuma xirna khayraadka dabiiciga leedahay Soomaaliya waddan xor waddan qani ah weeye waxaan leenahay badda u dheer Afrika ayaanu leenahay waxaanu leenahay dhul ilaa 9 milyan hektar gaaraya oo yani ku habboon beeraha waxaanu leenahay xoolo tiro badan laakiin haddana waa ka gaajaysannahay sababta maxay tahay waxa weeye waxaa yar aqoontii dadweyne يعني أقوم كذا فإذا سنة خيرات كيجا هي أضو هوسيسة مركا خرمال دتك وحجارسين كنا أقومت دت كاسي أي ليه مركا إن وحبر شغل اللي هرو أو لوجود دالو أقومت لأن يرادا يجي لك سوكراية أساس عضها بريتو نقول يا مستقبل كتلك وحي هذا جمع مرمان وحد يوجعتان إن كير سداد بلو لح بلو أي حكومة ديدو وحي سداد وحبر شو إن كبدنا صدق حكون أرضي وآدي ودنا كلا دوان كمديهين مصر كمديهين تركيا وكنتي آد نوع عن قبتي إلى هدنا السنة هاي حوي وحبضنا بك قبتي أنك عبر الشرق السودان إيران ماليزيا ودول كلا بدن حوي مركب وحنقول دالنا إن أفرسنا وشن سنة كبعد اسم الله عبتان ودك كادر حوق بدن أو حبرش أقوم في عنله ودك أنا كساري كرا لو أتذكر كجرو صو ساري كران أود رقالة يدلك muddo 20 sano ah Soomaaliya ma aysan lahayn isdhexgal joogto ah oo ka dhaxeeyay shacbiga Soomaaliyeed waxayna u muuqdeen kuwa kala milmay haddaba qaab caynkee ayay xukuumaddu u maareysay inay abuurto jawi lagu abuurayo isdhexgalka bulshada isla markaana la soo celinayo qowmiyaddii Soomaaliyeed si loo abuuro jawi wanaagsan dal horumarsan iyo ummad barwaaqo ah intii ay xukuumaddani jirtay waxaa hubaal ah in sidoo kale ay dawladdu ku guuleysatay dhinaca dhaqaalaha iyadoo samaysay miisaaniyad sanadeedkii 2012 sidoo kalena waxay dawladdu ku guuleysatay hirgelinta nidaamka dawlad wanaaga oo qayb ka ah heshiiskii road map ay dhinacyada Soomaalidu saxiixeen bishii September ee sanadkii 2012 haddaba sidee dawlad wanaaga iyo kobcinta dhaqaalaha ay u abaartay xukuumadda dabcan qorshe road map ee waxa kamid ah dawladda wanaaga runtii waxa idin sheegay waxa weeye marka meesha aan nimid حوي مجرن نظام ميزانيات نظام دقالة دلك كم أسجلين مركا وحيابي أقولي أنا كار حضر لي وحكم بدها إن لا دقالة مسمى سوقا تاس أياك أنت مركنا أنا أبورنو هي أدى لا دقالة كمسمى سوقا أو أنا كل قلنا هذا تقدر تاكل صباح الحفظ الزوجارها لحين لما تيجي بشي أفراد لو كن إلا بيه توانكا وحنا بلوني مدة سوس عتاد اسمه هذا مش جنوري سنة كان بلويسي أيانو سير دبة أن أهر قلنا كبعدنا وحي لسكر راعي ولقصو صاري كلها وزير هذا الحلاتين كي بشي أفراد لو كن إلا بيه توانكا مركا هيئات داسي جدد وحوي إن لهذا investigative powers إن أود أي كبارته وحي جرا مسماسقة ذلك وحكوا إذن شيء هذا وحلاقة الله عليه هذا joint financial management board أو يعني أطلع الله وهي أهيد فكرة أنا وأن كان رنتي أو أهيد إن الحسابات الأجرة يعني صار من غرية وحنا mutual accountability أو إن دقها
ama wixii dhaqaalaha ee naga soo gala beesha caalamka annagu aanu nahay accountable oo aanu shacbiga Soomaaliyeed u nahay accountable oo yani ay nagu xisaabtamaan beesha caalamka nagu xisaabtanto sidoo kale deeqaha iyo boqolaalka milyan ee dollar ee magaca Soomaaliya lagu bixiyo sanad walbana ayana ay noo yihiin accountable oo la xisaabtami karno ka dawlad ahaan marka inuu jiro mutual accountability anana aanu nahay يعني فسره نقالوا ماشوا كبحوا إنتنا سوق شيء صدق رأينا أي فسرات دبعة كبحيان وحكم ذو حيابة حكومة تكون كل ستي هذا نوع تلاقيها الله وحلا هذا إنها أداسي دقن كشو لنا أبورة وحيابة صدق حكم الأهاين وحيابة لوجها جاتنا دول ندمو هناك إن دتكو أي آمنان دولة ولا كمان مرمار هذه مركب أيسن آمنات جرينين وحلو ما هي مركب لجت مسيجي يعني خنتي يعني dowladnimada laftigeedii ayaa meesha ka baxaysa sababtoo waxa weeye dowladnimadu waxay ku dhisan tahay is-aaminaad bulshadu ay aaminto madaxdeeda iyo xukuumadeeda iyo dowladeeda Soomaaliya waxay burbursanayd oo ay dagaalo sokeeye dhex dabalanaysay in ka badan muddo 20 sano ah waa muhiim in la helo saaxiibo iyo iskaashi caalami ah si loo helo dib u dhis iskaashi isafgarad iyo xiriir joogto ah oo ay Soomaaliya la yeelato dalalka gobolka iyo beesha caalamka maadaama suuqadan u dhib badan soo maray maadaama dib u dhiska u baahan yahay ee laga maarmaan tahay inaan la kaashano beesha caalamka waxaan ku dadaalay marka in lagu soo xiro beesha caalamka Soomaaliya wada socotaano marka meesha nimid sanadkii la soo dhaafay bishii July bilowgeedii bishii June dhamaadkeedii July bilowgeedii waxa weeye markii airportka ka soo degay wasiir ku xigeenay anaga dhanba aad jirnay dowladda dhanba aad jirtay meeshaas macnaha waxa weeye waxa important ah hal shakhsi ah وحتى وزير كحجين إنه معنا لها مركز إنه سومالي ماذا ما أنت نضوج جدًا مدحدي أدون كمل بيجوجان سومالي أي ديرة صارين سومالي إيمانيا سوته محط حكيني وحكي إنه حوي الديرة ده يعني أنا أبورني رجال الله أبوري سومالي لك أبوري هو يودنك وكب حيو مرحلة كوتشري كان لينا مرحلة الصب تامر حكينت إن بدح بدني اعتماد أنا أقول أنا نص فرق بدن أدوه وتجنو لق يعني لقاها الله سي سومالي يدب لو بنوسي لها سي سومالي ماشي يجوكتو لقى قادنا سي سومالي لقى صار لها دبعتها لونا كارسين لها إن مستقبل وناكسن muddadii 12 bilood ahayd ay xukuumaddaasi jirtay waxaa suuragal noqday in la hirgeliyo qodobo aad u fara badan oo ay dhici karto in lagu hirgelin waayo 12 sano ee ay soo jireen dawladaha ku meel gaarlay waxyaabaha sida aadka loogu soo xasuusan doono waxaa kamid ah awoodsiinta iyo xoojinta oday dhaqameedyada Soomaaliyeed si ay iyagu u noqdaan dadka go'aan ka gaaraya ergada soo xulaysa dastuurka iyo sidoo kale baarlamaanka mustaqbalka ay yeelanaysa dawladda Soomaaliya sidoo kale waxa ay hirgelisay dawladdu in 30% qoonda siyaasadeed oo loo qoondeeyay haweenka Soomaaliyeed ay ka dhex muuqato nidaamka dawliga ah ee dalka Soomaaliya haddaba qaab caynkii ayay xukuumaddu u wajahday arintani maxay ahaayeen waxyaabihii ka dambeeyay in arintaasi la sameeyo oday dhaqameedku sababta aan u dooranay xukuumadaydu ay waxa weeye waxay leeyihiin wax la natural legitimacy waxa weeye ayaga leh moral authority waxa la yiraahdo ayaga waxay yihiin maadaama isbedel uu dhacayo yaa awood u leh in oo aan ahayn yani dan shakhsi aan ka eegaynin isbedelka dawliga taas ayaa keenta marka inaan ayaga niraahno ayaga ayaa dadkooda ay doorteen ayaga ay dadku bulshadu ku kalsoon tahay marka ayaga hala siiyo talada hana ka noqdaan buddiga isbedelka dawliga taaya keenta marka aanu raahno ha soo xulan ergada ansixinaysa dastuurka sidoo kale ha soo xulan yani baarlamaankaas oo ah hay'adda hooyadii hay'adaha dastuuriga marka sidoo kale arrinta aan ka hadalay oo kale waxa weeye oo road mapka yani ku jirtay in dumarka la siiyo doorkooda siyaasiga inay helaan waa laga maarmaan waa in ka badan boqolkiiba bulshada marka in la yiraahdo boqolkiiba 30 ha helaan ergada ansixinaysa dastuurka iyo baarlamaanka waxay ahayd arrin yani runtii muhiimad gaar ah noo leh sababta waxa weeye 20 sano la soo dhaafay cid isku haysay yani bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhibtaasi inteeda badan ay ku dhacaysay waxay ahayn dumarka iyagoo waliba aan ka ahayn qayb xasarada jirtay marka in hadda markii isbedel dawliga dhaco yani ay ka mid noqdaan oo ay ku soo biiraan isbedelka siyaasiga ah waa laga maarmaan
جدك برواقة نمع الله وقبوبة إتن خاسر مانو لا تكشف النفقة